inaan isku filnaan aan gaarno isku filnaansho inaan gaarno ayaan u baahanaa haddii daraad lagu taakuleynayay oo shalay lagu taageerayay maanta waxaa la rabaa inaad ka fikirto si aad adiga isugu tasho lahayd oo adigu gudbi lahayd oo cid kale adiga u taageeri lahayd u taakuleyn lahayd waa run balstationadii hadda la jeedinayay Soomaaliya guud ahaan dhibku wuu wada gaaray laakiin magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya waa meesha Soomaaliya hoyga u ah waa qalbigii Soomaaliya haddii wanaagsanaatana Soomaali way wanaagsan tahay intay jiran tahayna Soomaali way jiran tahay marka qofku hadduu qalbiga ka jiran yahay xubintiisa ugu muhiimsan waa qalbiga hadduu ka xanuunsan yahay caafimaadkiisu taam maaha marka qalbigii ayaan ka xanuunsanahay waa caasimadana bulshada Soomaaliyeed daafaha kala duwan ku nool haddii wax yar ay ku dhacaan ama abaaro ama dagaallo ay ku dhacaan meesha ay soo miciin bidayaan waa magaalada Muqdisho cidda loo imaanayo waa magaalada Muqdisho marka hadduu barakacayaal ahaa lahaayeen hadday ahaa lahaayeen dadkii halkan ku noolaa ee ku dhibaataysan intaba waxay markasta u baahan yihiin gacantayna ayay u baahan yihiin inaan kaalmayno aan ka warayno annaga runtii caafimaadka shirkan waxaad sheegteen inuu ahaa sanadkii hal mar laakiin inaa hadda ka dhigaysiin sanadkii 2 jeer hadda waxaa halkan lagu soo qiimeynayay sanadkii la soo dhaafay ee 2022 iyo 2020 ilaa January ilaa iyo bishii 6 markaan fiirinaynana waa aragtay way iskaga dhawaayeen ama mararka qaar koodba aydoon sanadkii dhamaanin ayay sanadka hore u dhibaatadu ka badneed waxyaabaha keenaya waa dareemi kartiin waxaan hadda inkaaga sheekaynayna maaha laakiin waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo inaan uga gudubno iskaashi iyo gacmoon isqabsanno iyo ubadkayna aan u adeegno mar kastaba labada shay ee dadka ugu tabaran ayaad u khidmaysin inta badan waa hooyada iyo dhallaanka hooyada iyo dhallaanku waa labada shay oo ahmiyadda leh ubadka aan bini aadamkana ugu tabarta daran hooyadu marna waa xaamilo marna waa umul kay dhashana waa dhallaankaas yarka ah ee maaragtay naaskeeda ku xiran noloshiisu hooyada baalkeeda uu ku nool yahay marka calaa kulli xaal geelku 2 jir waa soo wada mariyay waa soo wada marnay inaan hooyadayn marna caloosheeda aan ku jirno marna aan casiirka aan cabayno iyo caanaha macaanba ay noo yihiin oo soo qasida nooga baahnayn naaska hooyadayn marka cid kastaba waxay soo martay unbaa maanta hor yaallo qaabkii u wajahdo ayaana lagu fiirsanayaa ama lagu ogaanayaa mas-uuliyadda say u gudatay iyo sida kale marka waxaa laga dhawaajiyey MCA-yadu inta badan waa dhallaanka iyo hooyada ayuu u khidmeeyaa haddana waxaa la isweydiiyaa 30 sano kadib Soomaaliya maxay MCA-yada ugu filaala yihiin maadaama isbitaal weyn uusan ahayn oo yahay guri yar oo laga yaabo inuu 5 qol ama 4 qol ka kooban yahay oo waxa adeegiisuna uu kooban yahay ilaa iyo iminka Soomaaliya maxay ugu filaalaadahay ay MCA-yada ay ugu filaalaadahay waxyaabo la isweydiinaya kamid ah marka wali ma sii sugaynaa 30 sano kadib in wali MCA-yadii aan gacanta u taagano hay'adihii intaas soo sanana soo caawinayna soo taakuleynayay inaan wali isweydiino marka MCA soo xasuusato UNICEF ku soo dhacayso UNICEF markaad maqasho MCA ku soo degdegaay marka waxaan rabnaa marka la maqlo MCH inaan anaga soo degdegnaan rabnaa
قلبي أنا ودتك أو قلبي أنا ودتك أبوك صادعه مركز محمد يا محمد يا علي يا عبد الله يا زهرة يا زينب وحال قربه مسؤولية داسين يحكي قادان وهو أنت أنقفها تلقان فردو هدي قنوين كأن قادنو بقول كبا إن أنك قوينو وأن سنة اسكدرنو إن أن أمسي أشفرك الرواء من سنة لكن اسكدي أبايم حلبابا أنا قصاد لسعتين بما أقان وحانا قانا اسكتش هي اسكاش أيانا قانا شيلنج كان أنا قانا كينيا أن اسكدرنو أو حوض قبسنو مركز دواعي كوري waxaan ku wajahnaa wadooyinkan ku wajahnaa iyo bilicda magaalada sida loo dhisi lahaa iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aaminsanahay in nolosha qayb weyn ay ka yihiin wadooyinka waa ogsoontiin dalkaaga ku dhisay $1 alifnay 2016 mar labaad soo celinay ujeedaduna waxay tahay inay dadku wax wada yeeshaan dawladda siyaad bare xilliga ay duntay markay arintaas ay dhacday dadku waxay duulaan ku wada noqdeen wix alle wixii dawladda lahayd haday guri tahay haday ceel tahay haday baallo tahay asigaasaa lagu duulaan lagu wada noqdo maxaa yeelay siyaad bar dawladda siyaad baraa iska lahaa la yidhi marka dawladdu ma lehna dadka iska lahaa marka maalin kastaba haddii cid baxdo ma jajabinaynaa waa maya waa inaan helnaa dad waxooda ilaashada marka runtii waxaan uga mahad celinayaa waaxda caafimaadka dadaalka iyo juhdiga ay bixisay intii yartaayad ay joogtay oo adeega caafimaadka lagu soo wareejiyay gobolka Banaadir maaragtay meel wanaagsan ay soo gaarsiiyeen haddana agaasinka cusub ee xilka la wareegay dhowr bilood ka hor asuguna halkii ayuu ka sii anba qaaday caafimaad markaad anaga aan maqalnana asigaasaan kula xisaabtanaa qalbigayna waxaa ku soo degdego caafimaadka marka la yiraahdo Cabdiraxmaan waxbarasho marka la yiraahdo waxaanu soo degdegay Cabdifataax qorsheyn marka la yiraahdo waa dalxa marka iyo in la mid ah hadii ilaahay ilaahdo cid kastaba sida hadda gobolka Banaadir marka la yiraahdo madaala soo degdegay marka inta joogo waa inta aan joogo bari waa tagi karaa waa dhima karaa waa cid kale la wareegayso mas'uuliyaduna waa xarig isu dhiib intiina meesha fadhida laga yaabaa qof kamid ah inuu berito uu mas'uuliyaddan qabtaa suuragal ah marka u wanaaji ugana shaqaysi hagar la'aana adigoo ku fikiraayo berito inaad mas'uul waxaan ka noqon karto marka ala kulli xaal marrabo shaqo badana idin taalo isla xisaabtana idin yaallo waa la xarig jiidayaa saas ayaan waxaan leeyahay in waqti badan idinka qaado marrabo laakiin aad kala soo qayb galo oo maaragtay dhalinyaradan wajiyadooda wada nuurayso wada qurxoon maanta halkaan aan kula kulmo fursad ay ii tahay laftirkayga waxaan islahaa dad kale aan ka fikiraayo isla meesha wayn kaaga badnaa doonaan laakiin anaga u badan idinka u badan marka waxaan is weydiinayaa hadda maxaa halkan loo soo aaday haddii dadka soo qayb gala kulankaan ay yihiin magaalada gudaheed maxaa lagu qabo waayo marka ma aqaano ala kulli xaal laboorka waxaan malaynaa kadib in badda la sii geli doono ama halka wax laga sii raadi doono marka magaalada loo soo laabto gudaha hoteelo badanaa ku yaallo waxna lagu qaban karo transportation kan kaaga sahlan yahay marka yaan xalana nagula wada qasbin marka waa mahadsantiin mar labaadii mar saddexaad hawsha idinta Allah idin fududeeyo agaasinkana waxaan rajaynayaa insha Allah waxa la isugu yimid meeshan waa hawl caafimaadka la isugu yimid dhalintiisa waxaan ka rabnaa agaasinkan kula xisaabtami doonaa idinkuna waxaan idinku boorinayaa wada shaqayn wacan inaad la shaqaysiin waaxda caafimaadka si guud iyo si gaar ah inaad la shaqaysiin ayaan ka codsanaynaa waa ku mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad aan gacmaha isqabsano aan ubadkayna iyo ummadayna aan u kaalmayno waxaan qaban karnaa aan qabanno kelmadda aan sheegayo eeday MCH waa furi karnaa intaan hadda meesha fadhido bal maanta ha bilaabato inaan wax u qoondayno 10%, 5%, 1%, 20% qofba si aan wax loogu qoro aan qoondayno markay xoogaa isku soo ururtana aan wax ku bilaawna hadii la yiraahdo على الأقل waxaan la wadaagna xataa la wareegno dadka ka shaqeeya xataa gunadooda aan la wareegno oo daawada naga caawiya laakiin daawada naga caawi
qofka ka shaqaynayna mushahar noo sii gurigana adiga noo dayactir waxaasoo dhan dee ma wada qabato marka calaa kulli xaal barnaamijkaasi waxaan rabaa insha allahu bisha hadda aan ku jirno waa julaay 26 maanta maraysaa September marka la gaaro oo 2 bilood aan bal waxayna wax ka goyno MCA-da qaarkood aan gunadooda dadka ka shaqeeyo aan gunadooda anaga la wareegno shirka wuxuu ka soo baxay 26 ka qabsoomay gudaha xalane ayuu ka soo baxan aan dhahno agaasimo adan ku weydiina lacagtaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh